asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan. halkani waa duulii miidiya. kusoo dhawaada saaxiibayaal, mowduucina maanta waxaa qeybta labaad aan gudagali doonaa taariikhda bakistan iyo sameyska hubka nukliyeerka. bakistan waxaa usoo baxay geesi taariikhda ay xusi doonto sanado badan. geesigan ayaa kasoo baxay magaalada qadiimiga ah ee baabul ee wadanka hindiya, halkaas oo uu ku dhashay sanadka markuu ahaa 1936. xilligaas oo hindiya iyo bakistan aysan kala go-in. magaciisa waxaa la yidhaahdaa doctor cabdiqadiir khan. waa caalim ku xeel dheer cilmiga fiisigiska, waana aabihii lahaa hindisida iyo naqshadeynta hubka waxgumaada ee nukliyeerka ee bakistan. doctor cabdiqadiir khan waa caalimkii ugu horeeyey ee muslim ah ee sameeya ama qarxiya qunbulada hubka waxgumaada ee nukliyeerka. doctor cabdiqadiir khan waxa uu waxbarashada dugsiga sare kaga baxay magaaladii uu ku dhashay ee baabul oo hadda ka tirsan wadanka hindiya. 1952 doctor cabdiqadiir khan waxa uu kasoo tegay magaaladii qadiimiga ahayd ee uu ku dhashay. xilligaas waxa uu usoo wareegay wadanka bakistan. 1960 doctor cabdiqadiir khan wuxuu jaamacadda karaaji ee wadanka bakistan ka dhameeyey kuliyadda cilmiga, waxa uuna halkaasi ka bilaabay shaqo dowladeed. balse doctor cabdiqadiir khan shaqadii dowladda waa iskaga tegay, waxa uuna u safray dhanka qaaradda yurub si uu halkaasi ugu sii wato waxbarashadiisa. waxa uuna magaalada berlin ee caasimada wadanka germany kaga biiray jaamacadda cilmiga tiknolojiyadda, isagoo halkaasi ku dhammaystay 2 sannadood oo khibrad cilmiga tiknolojiyadda ah. 1967 doctor cabdiqadiir khan waxa uu shahaadada masterka ka qaatay jaamacadda tiknolojiyadda lagu barto ee wadanka holland. 1972 doctor cabdiqadiir khan waxa uu shahaadada ugu sareysa ee PhD ka qaatay jaamacad kale oo ku taala wadanka Belgiumka. doctor cabdiqadiir khan markii uu qaatay shahaadada ugu sareysa ee PhD-ga wuxuu codsi shaqo u dirsaday shirkad dhinaca ka shaqeynaysay oo la oran jiray FDO oo Holland laga lahaa. FDO waxay xiriir qoto dheer lahaayeen ama shaqo wadaag ahaayeen hay-ad ka shaqeysa bacriminta hubka nukliyeerka ee Yurub. doctor cabdiqadiir khan waxa uu shaqo ka bilaabay hay-adda FDO oo xilligaasi daneynaysay bacriminta uraniumta, iyadoo dhanka kale FDO waday barnaamij si sira loogu horumarinayay hubka nukliyeerka ee waxgumaada. 1947 dowladda hindiya waxay qarxisay qunbuladii ugu horeysay ee hubka nukliyeerka ah. doctor cabdiqadiir khan waxa uu u walwalay dalkiisii bakistan oo colaad xoogan kala dhexaysay dalka hindiya. doctor cabdiqadiir khan waxa uu xilligaas warqad u qoray ra-iisul wasaarihii bakistan ee xilligaas dulfaqaar cali buutu. warqadaasi waxay u qorneyd sidan: si ay bakistan ugu suurta gasho dowlad madax bannaan waa inay samaysataa hubka nukliyeerka, ayuu yidhi doctor cabdiqadiir khan. madaxdii wadanka holland iyo ee shirkadda FDO ee xilligaasi doctor cabdiqadiir khan waxay ugu shakiyeen inuu yahay nin sirdoon ah oo wax badan la wadaagay dowladda bakistan, balse wax cadeymo ah waa lagu waayay baaritaan kadib. doctor cabdiqadiir khan waxa uu si hoose u xaday naqshadii dhisida nukliyeerka ee shirkadda urenco iyo macluumaad kale oo ku saabsan iyo warshadaha iibiya qalabka lagu dhiso warshada hubkaasi. 1975 kadib markii uu helay macluumaadkiisii, doctor cabdiqadiir khan waxa uu sikadiisa ugu safray wadankiisa bakistan. shirkadii uu la shaqeynayay ayaa doctor cabdiqadiir khan oo dhowr jeer la sameysay xiriir inuu soo laabto ah wuxuu u sheegay inuu la tacaalayo cudurka jones. sirdoonka wadanka holland oo ka shikiyey doctor cabdiqadiir khan ayaa bilaabay inay xog ka helaan, balse kuma guuleysan xilligaasi inay wax macluumaad faahfaahsan ka helaan doctor cabdiqadiir khan. 1967
doctor cabdiqadir khan waxa uu dhisida hubka nuclearka ka bilaabay goobta loo yaqaano Kuhuta oo ku taala salka hoose ee buurleyda Himalaya ee dalka Pakistan. Mashruucaas waxaa lagu yeeri jiray 706 waxa uuna ahaa mashruucii ugu horeeyay ee waddan islaam ah uu ku samaysto hubka nuclearka. xilligaasi Mareykanka iyo reer galbeedkuba waxay ka codsadeen inuu joojiyo mashruucaasi, balse Dr. Khan iyo dowladda Pakistan way diideen inay dhag jalaq u siiyaan. CIA-da Mareykanka waxa ay ogaatay in Dr. cabdiqadir khan uu ku mashquulsan yahay samaynta hubka nuclearka, balse xilligaasi ma ahayn xilli Mareykanku isku mashquuliyo arrintaasi. Mareykanka arrimaha Pakistan waxaa kala weynaa xilligaasi dagaalka Afghanistan iyo midowga Soviyetka ka dhexeeyay. Mareykanku xilligaasi waxa uu aad u raadinayay inuu gobolkaasi ka helo ama ku yeesho saaxiib aad ugu dhow si uu halkaasi ugu taageero kooxihii ka dagaalamayay dalka Afghanistan ee la dagaalamayay ciidamadii cascasaa ee midowga Soviyetka. Mareykanku wuxuu doonayay in dagaalka halkaasi ka socda ee Afghanistaniyiinta kula dagaalamayaan Ruushka aad loogu jibiyo Ruushka. Waxa uu gobolkaasi ka helay saaxiibkii uu raadinayay oo ah dalka Pakistan. Haddaba si qorshihii Mareykanku dhigay ee ahaa in Ruushka lagu jibiyo dagaalkaasi ugu xumaa ama ugu fashilmo, Mareykanku wuxuu meel hoose iska taagay inuu fargeliyo arrimaha gudaha Pakistan ka jiray ee barnaamijka samaynta hubka nuclearka. midowga Soviyetka waa uu burburay, Mareykankuna waa uu gaaray hadafkii uu doonayay ee ahaa in uu Ruushka burburo, balse markaa waxaa ka lumay raadkii Dr. Khan. Pakistan waxay hirgelisay hadafkeeda, guushii way gaartay 1998. dowladda Pakistan waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay tahay dal ku hubeysan hubka waxgumaada ee nuclearka. Amaana Allah.